Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Nolosha waayaheeda kala duwan wuxuu ku bilowdaa maalinta aad adduunka kusoo biirtid. Marba marka kasii dambeysa waxaa kusoo waajaha dhibaatooyin xal kaaga baahan maba kusii jirto marka aad tahay qof hami xambaarsan oo waxaa raadis kaa raba ka gungaarista go'aanada aad rabtid inaad gaartid. Ka muslimiin ahaan waxaa mar walba waajibka qoyska saaran yahay waalidiinta, weliba midda ugu muhiimsan oo ah quudka waxa uu saaran yahay aabaha guri. Qofka marka uu soo qaangaaro waxaa gala hami uu rabo inuu nolosha halgankeeda adag uga gungaaro oo wax walba uu haysto uu ku bixiyo, haba ugu badnaato awoodda yarta ah ee uu isbiday, dareemayna inuu wax walba ka xoog badan yahay. Marka taas lagu daro, badanaa dadku waxay dhahaan waxay fiican tahay marka aad joogtid waddan horumarsan, fursadaha la heli karana ay badan yihiin. Balse hadalkaas waxaa beeniyey ninka aan maanta ka hadli doono oo kasoo kicitamay dhul haba yaraatee wax nolol ah oo laga bilaabi karay aanay jirin, weliba ay ugu sii daran tahay xagga amniga. Kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. This is Bashar. I grew up poor and now I'm running a successful business in South Sudan. Bashar wuxuu kusoo barbaaray Soomaaliya, weliba family faqiir ah dhexdooda, guri burbursan oo isgaarsiin aanay ka jirin, wax walba ay kasoo bilowdaan eber. Marka uu 17 sano jirsaday wuxuu go'aansaday inuu bedelo noloshiisa. Wuxuu u dhaqaaqay xuduudda Soomaaliya iyo Kenya u dhaxaysa asigoo aanan haysan wax lacag ah. Markii ugu horeysay ee uu Nairobi tagay wuxuu tagay isbitaal si uu u hubiyo caafimaad qabkiisa. Wuxuu la sii joogay qaar ka tirsan familkiisa magaalada dhexdeeda si uu noloshiisa hore ugu sii wato. When I came to Islay, I was like shocked the buildings. I was kind of feel like when comparing to Manhattan, that was my Manhattan. When I came to Islay, I was shocked. Wuxuu sheegay markii ugu horeysay ee uu magaalada imaaday in uu la yaabay dhismaha dhaadheer ee magaalada. Marka la fiiriyo xagga waxbarashada, Bashar ma soo dhigan wax iskuul ah, xitaa dugsi hoose. Balse Bashar wuxuu naftiisa baray ganacsiga iyo xirfadaha kombiyuutarka asigoo isticmaalayo YouTube. Shaqadiisii ugu horeysay waxay ahayd inuu ka shaqeeyo meel internet cafe ah. Wuxuu maalintii ka heli jiray $2. Sanado badan oo shaqo adag ah ilaa ugu dambeyn uu mushaarkiisa noqday $100 asiga oo sameynaya kombiyuutarada halaysan. Kadib Bashar wuxuu u ruqaansaday inuu bilaabo ganacsigiisa u gaarka ah. Wuxuu furtay internet cafe maadaama ay ahayd shaqo uu xirfadeeda leeyahay. Waxaa cajiib ah sida uu ula qabsaday deegaankii uu dhawaan tagay oo uu isku dayay inuu ugu noolaado sidii qof ku dhashay oo kale. Bashar caqli ahaan wuxuu ahaa mid aad u fakara oo wuxuu isbaray luqadaha Sawaaxiliga, Ingiriiska iyo Carabiga. Maalin asigoo shaqadiisa iska haysta oo nolol maalmeedkiisa la daala dhacaya waxay isbarteen nin ka imaaday South Sudan. Ninkii ay sheekaysteen wuxuu u sheegay inay fursado badan oo ganacsi ay ka jiraan magaalada Juba, laakiin Bashar wax baasaboor ah ma haysan oo uu ku dhoofo, balse wuxuu isku dayay inuu helo sharciga waddanka uu ku nool yahay ee Kenya. Isla waqtigaas wuu guursaday. Hadda waxa uu joogta 3 caruur ah. Intaas kadib waxa uu guuray magaalada Juba si uu u bilaabo ganacsigiisa. But then quickly moved over to Juba to start his company called Season. I'm a service provider. The company is called Season Trading. We do only business with UN agencies. We are kind of humanitarian support organization. USAID is one of the biggest donors in the country. And this is our stock. This is emergency stock for the client. It's a temporary toilet they use it in the refugee camps and stuff. I'll show you outside the clear one. And this is a bucket they put in the water and stuff. oo hadda lagu magacaabo Season. Waa shirkad bixisa adeegyo kala duwan oo badanaa waxay la shaqeeyaan hay'adaha qaramada midoobay. Waraysi laga qaaday wuxuu sheegay in markii uu soo baxayay in hooyadiisa ay ka xumaatay bixitaankiisa, markii dambena uu ku qanciyay inuu baxo si uu noloshiisa u bedelo, waana taas mid dhacday. Hadda Bashar wuxuu u dhoofay wadamo badan oo caalamka ku kala yaala, ha noqoto mid ganacsi ah ama mid dalxiis ah. Wuxuu u dhoofay wadamo badan oo ka tirsan caalamka. Hadda wuxuu maamulaa company qiimihiisu yahay malaayiin dollar oo ay ka shaqeeyaan 25 qof oo shaqaale ah oo ka howlgasha 4 waddan: South Sudan, Kenya, Uganda iyo Soomaaliya. Sidoo kale wuxuu xafiis ku leeyahay magaalada Dubai. Bashar waa uu soo halgamay noloshiisa iyo dad badan oo familkiisa ka mid ah noloshooda saameyn wanaagsan ayuu ku yeeshay. Tan waxaa lagu magacaabi karaa qof nafsadiisa maalgeliyay oo iskuul aan soo dhigan, sidoo kale xitaa jaamacad, balse gartay inuu asiga wax isbaro oo iska soo saaro bulshada uu ku dhex dhashay, yacni uu ku dhex nool yahay. Bashar sheekadiisa waxay dhiirigelin u tahay dad badan oo raba inay nolosha guulo badan ka xaqiijiyaan.